war-saxaafadeedka ka soo baxay Banka Dhexe Somaliland oo ku saxay yahay gudoomiyaha Bankiga Dhexe Ali Ibrahim Jaamac ayaa u dhignaa sidan waxaanu bulshada Somaliland halkan kula wadaagaynaa sababaha keenay hoos u dhaca shilinka Somaliland qadadan 3% laga bilaabo 22 bisha shanaad 2018 waxa kamid ah sababahaasi kow dhaqdhaqaaqii dekada Berbera oo hoos u dhacay kadib markii maraakiibtu ka war heleen saadaashii duufaanada ku soo wajahan badda castaasi waxay keentay cashuurtii iyo baahidii shilinka u yaraaday laba ganacsada bagaashku waxay u diyaar garoobayaan soo dejinta bushcuradii loo xilliga ciid al-fidriga taasi oo kordhisay baahida loo qabo doolarka saddex waxa diiqada biyo ku sii shubay laba ganacsade oo mid ka ganacsada qaadka midka kalena sarifka lacag ganacsadaha qaadka oo baahi weyn u qabay inuu degdeg u helo doolar ayaa sariflaha ka iibsaday lacag dhan 40,000 oo doolar taariikhdu markay ahayd 22 bisha shanaad 2018 sarifku waxa uu maalintaasi marayay halka doolar 9,750 senti balse qaadlu waxa uu ku iibsaday halka doolar 10,050 senti oo u dhigan kacdan 3% iibkaasi markii uu dhacay waxa 2 saacadood gudahood iyaguna sicirka kor u qaaday saliflayaashii kale maanta ay taariikhdu tahay 26 bisha May 2018 gacanta dambe ee doolarku waxa wali kor u kacsan yahay 2.8% marka la barbar dhigo sicirkii 22 May 2018 labada ganacsade waxay saameyn weyn ku yeesheen guud ahaan dhaqaalaha Somaliland gaar ahaan maciishada danyarta oo kor u kacday iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan hadaba Banka Dhexe Somaliland waxa uu farayaa kow ganacsatada iyo sariflayaashu inay dhaafi karin sicirka gacanta dambe ee Banka Dhexe soo saaro maalin walba ganacsadaha iyo sariflaha ku xadgudba wax laga qaadi doona talaabo sharciga waafaqsan oo ay kamid tahay in ruqsadda laga noqdo laba bulshada wax iibsata waxa laga codsanayaa in aanay wax ku iibsan sicirka ka sareeya sicirka Banka Dhexe soo saaro subax kasta ee lagu soo diro fariimaha text message-ka toddobaadka soo socda waxa uu Banka Dhexe rajaynaya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka soo baxay in oo sixirku hoos ugu dhaco halkii uu taagnaa 22 May 2018 Allah mahadle waxa war-saxaafadeedka ku saxan gudoomiyaha Banka Dhexe Somaliland Ali Ibrahim Jaamac